Asalaamu calaykum magacaygu waa Cabduuli Nadaara waxaana soo saaraha barnaamijyada halkan ka baxa kusoo dhawaada mowduuceena maanta haddii aad ku cusub tahay kanaalka fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan janalka bulshada gambaleelkana furo si barnaamijyadu marka ay soo dhacaanba aad ula socotid xilliga aan ku jirna ama waqtigani waa qaboobe ama jiilaal waqtiga uu habeenka maalintii ka badan yahay kristanku waxay leeyihiin in ka badan 140 ciidood ama munaasabadood kuwaas ay ugu waaweyn yihiin ama ugu caansan yihiin labada ciidood ee had iyo jeer dhagaheena ku soo noqda oo kala ah Christmas Day iyo sidoo kale Easter. Christmas Day-gu waa maalinta 25-ka December kuwaas ay kristanku aaminsan yihiin maalinta uu dhashay Nabi Ciise calayhi salaam halka Easter-kana ay sheegeen in maalinkii la dilay Ciise. waxaad aragtaan dad badan oo Kristan ah oo u dabaaldegaya bisha December siiba 25-keeda maalintan oo ay aaminsan yihiin inay tahay maalinta uu dhashay Nabi Ciise calayhi salaam balse waa mid xaqiiqda ka fog oo kristanku dhoodhoobeen. marka hore waa maxay macnaha ereyga Christmas? Chris waa mukhallas misna waa miilaadi marka la isku akhriyo waxaa loo soo gaabinayaa miilaadi mukhallas oo noqonaysa maalintii uu dhashay Ciise ama dhintay. tankii noolaa wixii ka horeeyay qarnigii afraad waxay aaminsanaayeen in dabaaldegani uu yahay wax ay sameeyeen baaganiskii balse aanay ahayn maalin kristanku leeyahay loona baahnayn in loo dabaaldego. dabaaldega kristanka maalmaha 25-ka December iyo sidoo kale 6 January waxa uu soo bilowday barnaamijkani qarnigii afraad. maalinta 25-ka December waxaa dabaaldega kaniisadaha Kaatooliga iyo wixii raacsanba. haddaba 6 January oo ay dabaaldegaan kaniisadaha Ondronka waxay raacsan ama hoos yimaada taasi waxay la micno tahay kaniisadaha galbeedku inay u dabaaldegaan 25-ka December halka ay kuwa bariguna u dabaaldegaan 6 January. laga bilaabo 25-kii December ama 6 January kristanka qaarkii ayaa u dabaaldega inta u dhaxaysa 12 cisho. asal ahaan dabaaldegani xagee ka soo jeeda? waxaa jira aragtiyo loo tilmaamay inay yihiin halka laga soo munguriyay dabaaldegyadan. waxaa jiray oraah la odhan jiray Yule oo ay u dabaaldegi jireen diinlaawayaashii ku noolaa wadamada Scandinavian-ka sidoo kalena Jarmalka iyo kuwo kale waxay u dabaaldegi jireen wax la dhaho Sontron macna ahaan af Soomaali waxa uu ku noqonayaa ilaha beeraha ama ilaha cadceedda taas oo u dhigan qolana waxay u dabaaldegayaan ilaha beeraha qolada kale waxay u dabaaldegaan ilaha cadceedda kaas oo ay leeyihiin soo noqo maadaama baraf iyo qabowba aan ka jiray xilliyadaas wadamadaas. ay sameeyaan dabaaldegyo iyagoo dab shidanaya dabkaas oo ay ku dalbanayaan inay cadceeddu u soo noqoto maadaama wadamada qaarkood ay 24 saacba ay mugdi ama wax cadceedda hayna jirin. dabaaldegii ugu horeeyay ee Masiixiyiinta loo dabaaldego waxaa la soo wariyay inuu dhacay 363 xilligaas oo Roomaankii waqtigaas noola ay u dabaaldegeen. waxa ay ka fakareen in kristanku waxay dhigeen maalmaha kadib 25-ka December waxay dhaheen maan dhiganaba maalinta Ciise dhashay halka qolada 1 January-na ay dhaheen maalintii Ciise balagta laga jiray ama la guday halka maalinta kale ee 6 January-na ay dhigteen maalintii Ciise la dilay. qarnigii 9aad ee kaniisadaha Protestant-ka waxay u arkeen dabaaldega maalmahan inay tahay bidco wax aanan banaaneyn oo ay soo waarideen qolyihii kaniisadaha Kaatooliga. sidaa darteed qaybo ka mid ah wadamada reer galbeedku waxaa laga mamnuucay dabaaldega 25-ka December. dhowaan ayay ahayd wadamada reer galbeedka si guud looga wada ogolaaday in ay dabaaldegi karaan waxaana taas cadayn u ah ama muujinaya in wadamada qaar dib loo soo celiyay dabaaldegii Christmas Day-ga bilowgii bartamihii dhamaadkii qarnigan soo dhaafnay ee 20aad. ugu dambeyntii maalmahani waa maalmo ay mushrikiintu leeyihiin mushrikuna uu ku soo raacay waa kristanka kadib markii Roomaankii kaniisadaha ee xukumayay kari waayeen in dhaqankan uu ku soo fiday. waxaad halkaa ka fahmaysaa inay yihiin maalmo been abuur ah oo kristankuna ku raacay kuwii diinlaawayaasha ah ee dabaaldegay ee qabsanaya xilligaas halka kuwa kale fahmayana kristanka laftiisa ka hor imanayo qarnigii afraad uu arkayeen dabaaldegin inuu yahay bidco taas oo kristankuna iyaguna og yihiin inay ku soo raaceen bidcadii ay lahaayeen mushrikiinta. waan filayaa daawade in si wacan aad u fahantay maalmihani halka ay ka soo jeedaan iyo sidoo kale halka laga soo minguriyay waxaana loogu yeedhay Christmas Day. insha Allah qormada xigta waxaan ku eegi doonaa wax isagana loogu magac daray Boxing Day oo ah maalmaha farxadaha hadiyadaha la isugu doonsiyo. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawade haddii aad nagu cusub tahay fadlan kanaalkeena like noogu dhufo sidoo kalena subscribe noo saar mowduucana sii share garay haddii aad ka heshay. mahadsanid daawade fi amaanillah. fadlan
haddii aad channelkeenna hore aadan ugu jirin fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan channelka hoyga bulshada waad mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا